بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم marka hore waxaan u mahad celinayaa golaha wasiirada kadib markay ansixiyeen soo jeedintii wasaaradda amniga ee ahayd magacaabista sareeyo guuto Asad Cismaan Cabdullaahi inuu noqdo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed kadib markii uu xilka baneeyay taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyagaas Sulub Axmed Firin si loo dardargeliyo howlaha amniga dalka oo ay muhiim u tahay ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan u mahad celinayaa taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed howlihii wanaagsanaa oo uu dalka u soo qabtay gaar ahaan arrimaha amniga saasi leeg waxaan soo dhaweynayaa sareeyo guuto Asad Cismaan Cabdullaahi oo ah nin khibrad u leh arrimaha amniga waxaan u rajaynayaa in uu Ilaahay howlaha loo igmaday uu Ilaahay la garab galo aad iyo aad baa u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh